kulanti waxaan oo wanaagsan idin ahaantiin dhammaantiin ku soo dhawaada halkani waa Artish Entertainment ani magacayguna waa Ibrahim Xuseen oo magac dheer Ibrahim Artish maanta barnaamijka aniga waa barnaamijkii fadhi iyo falaaqeen maanta barnaamijkeena fadhi iyo falaaqeen horta ko sidis banaan baa murti iyo madadaalo ma fahanteen barnaamijkeena maanta waxa ku soo qaadanaynaa hadii Ilaahay arrimaha bulshada maanta wacyi gelin waa barnaamijkeena waxaan wacyi gelinaynaa dhalinyarteena Soomaaliyeed gaar ahaan wiilasha ku nool wadankeena Soomaaliya marka muuqaalkan arabna inaan falaaqeyno hadii Ilaahay yiraahdo bal nolol daawada idinkana iyo idinko fikirkiina ka dhiibanayo fikirkiina ku faaleynaysiin qaybta commentiga ah like iyo subscribe iyo share oo isku ognaan taas waa balanteena muuqaalkan hadaan gudaha u galno maanta waxa waaye wiil Soomaaliyeed oo ka shaqeysto bakaaraha Muqdisho meel kasto wareega dadka dhahayeen wadanka shaqo ma laha wadanka saan waaye wadanka waxa waaye qabiil wax la isku siiya ninka dhahayo maanta waxa waaye fashilan tahay yaa ku fashilan taqaana fanaan cagaar magaciisa ma ka saayb fanaan buluug aan ka wadaa soo bilaaba hadda waxaan joogaa Xayaat bakaaran ka soo reexay marka ilaa iyo waxaan gaaraa Kaawguday suuq Madiino suuq weyn ilaa meelaan keenin male intaas loo wiilkan dhageysta wuxuu suuxiya soo kaco bakaara ilaa ay Kaawguday Madiino meelaan tageen ma la hooyiri waxa ma la hooyiri wariyaha markuu wuxuu weydiiyay yani hordhicine ila dhageystaba ku gaartaa suuq le alxamdulillah 26 lagu siiyay wuxuu yiri wariyaha lug ma ku gaartaa ilaa intaaseeti wiilku wuxuu yiri ha laakiin jawaabta uu si waa jawaab xikmad leh ma sha Allah aan dhageysano jawaabtaasna shaqeysta kaaga haboon halkeen horta shaqo la'aan kama jirto saaxib muhiimadu ugu horeys waa inaad soo kacdaa shaqo ay raadsataa haddii aad leedahay guri la iska fadhisid oo maanta oo dhan guriga la iska fadhisid wax ku soo kordhay haba yaraatee ma jirto mutacabban gurigeena oo maqlo sameeyno wuxuu yiri 25 senti oo qofku si 25 senti asoo adii shaqeysatid tan adii shaqeysata ku fiican oo yiri wuxuu yiri wadanka shaqo ma la qof dhigi karta ma la wadanka shaqo uu leeyahay macnaha hala shaqeysto macnaha wiilkan waa wiil Soomaaliyeed ma sha Allah waa ku faraxsanahay Ilaahay u barakeeyo dhalinyarta Soomaaliyeed waxa dhiileen hore aan u socono aan noqono dad wax soo saaro maxaa yeelay wadan waxa dhisto waa dhalinyartiisa iyo dadkiisa dhistaan Soomaa hadaan dhahno shaqada uma qalmi shaqadan intaan ma aha ani casay ma noqaa isbaziin ma noqaa mindi ma sameyn kari kabaam ka shaqay kari wax ma aan hadii harqaan la heli lahayn ya dharno tullahay hadii oo kawan la heli lahayn ya hilibna jar lahay hadii oo tumaal oo jir lahayn oo baashan ninka birtan garaaco mindi inta keeneen iyo seefahan iyo masaarada inta keeneen waa maya adduunka xirfad baa loo baahan yahay dhalinyarta Soomaaliyeed ani waxaan ugu dhiirgelinahay dhamaanteenaba ani hadda iska bilaabo ina xirfad aan yeelano xirfad aan lagu horumaraa adduunka waa isbedelay social media jiro xirfado waxa jiraan u fudud xirfado culus qof kasto oo meesha ka shaqeey karo ha ka shaqeeyo waxa qabto ma fahmino marka waa iglinta igu dhawaan igu dheeraadee reaction kana ku socono marka hadii oo macnaha maanta aad soo kacday magaalada aad gashid waxa soo shaqeystay oo wax allaal waxay doonaan ha ahaadaan ama shaqaalnimo ha ahaato ama waxa leedahay ha ahaadaan wax aad ku shaqeysid weeynis gaari gacankan waxa ka soo bilowdaa ama wadadiisa ay ka soo bilaabataa suuqa bakaaraha suuqa bakaaraha ka soo bilaaba hadda waxaan joogaa Xayaat bakaaran ka soo reexay ما شاء الله ninkan adag waaybo suuqa bakaaraha ilaa ay Kaawguday gaar gacan oo riixooya xariifyaasha qaar aan ka saarin hadii inta ilaa Jam Street wajiga la xulaa daali oo dhilahay ma sha Allah xoogaa ilaa ku barkay wiil Soomaaliyeed ku daysha muun tahay hor u soo ku dhilahay marka ilaa iyo waxaan gaaraa Kaawguday suuq Madiino suuq weyn ilaa meelaan keenin male intaas lugaa ku gaartaa intaas lug le alxamdulillah marka waxaad sababtaas aad u sameynaysidna waa inaadan facaash ahaadin 25 senti maanta ficiga inta weydii lahay waxa iga roon 25 senti aan shaqeystay oo ididkeyga ah ya salaam warkad meesha ku soo xiriyay
marka balanteenu waa shaqo iyo xirfad inaan barno oo wadankeena wax u qabsan dhalinyarteena Soomaaliyeed intaan nahnay halkani waa Artish Entertainment waa halka hoygii murtida iyo madadaalada barnaamijyaashan way badan yihiin riwaayadii aan ugu barateen way soo socdaan barnaamijkan waa barnaamij fadhi iyo falaaqeen waxaan kaga hadli doonaa arrimaha bulshada wax kasta oo ku dhaco وانا عزومي دونا dadkii aan ugu taqaaneen hadii ilaahay magacaygu waa Ibrahim Hussein Artish oo barnaamijka nidaadinay see you next time and next day we will meet together subscribe like and share